Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhaqdhaqaaq iyo sidoo kale xiisad dagaal oo ka taagan deegaanada Waqdariye Shidan iyo sidoo kale Yube kadib markii maamulka Somaliland ciidamadii ugu badnaa uu ka soo dhaqaajiyay dhinaca magaalada Cerigabo kuwaas oo la tilmaamay inay ku sii jeedaan deegaanka Waqdariye ee gobolka Sanaag. xogii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale inta tabintan aynu ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo Muqdisho soo gaaray iyo tallaabo culus oo durba uu qaaday madaxweyne Qoorqoor. Xasan Sheekh Maxamuud oo Baydhabo ku sugan ayaa si adag ula dardaarmay bulshada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa uu yiri Xasan Sheekh qaybta dambe ayaad kaga bogan doontaa codka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Soo dhawow daawade muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo sida aad u aragto dhaqdhaqaaqa gobolka Sanaag ka soconaya Somaliland ma waxay duulaan ku tahay ciidamada difaaca deegaanka suuragal ma tahay gacanta ay ku dhigto Waqdariye Shidan iyo sidoo kale Yube. Maxay tahay tallaabada markaasi Qoorqoor uu qaaday mid markaasi guul uu ka gaari karo ma tahay tallaabooyinka uu durba horey ka qaaday. Wahgaaga sida la socotaanba mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Waqdariye Shidan iyo Yube ee gobolka Sanaag waxay ahaayeen deegaano ay ka taagan tahay xasarad colaadeed oo u dhaxaysa dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada maamulka Somaliland iyo maleeshiyaad ay taageerayaan oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sanaag qayb kamid ah. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay waxaa la soo warinayaa in ciidamada maamulka Somaliland ay sameeyeen isla markaana ciidamo iyo gaadiid dagaal oo fara badan oo ka baxay magaalada Cerigabo ayaa lagu soo waramayaa inay ku sii jeedaan dhinaca deegaanada Waqdariye Shidan iyo sidoo kale Yube. gaar ahaan deegaan xebeedka Waqdariye ayaa lagu soo waramayaa in ciidamadii ugu badnaa ee maamulka Somaliland ay u ruqaansadeen. ilaa hadda dhinaca Somaliland faahfaahin kama bixinin ciidamadan tirada badan ee u dhaqaaqay dhinaca deegaan xebeedka Waqdariye ee gobolka Sanaag. xogaha aynu helayno ayaa tilmaamaya in maamulka Somaliland uu qorsheynayo duulaan military oo ballaaran in uu ku qaado deegaan xebeedka Waqdariye ee gobolka Sanaag iyada oo la arkayay gaadiidka dagaal iyo sidoo kale madaafiicda oo loo sii daldalaya dhinaca deegaanada Waqdariye iyo Shidan gaar ahaan deegaanka Waqdariye oo ah halka Somaliland ciidamadeeda waqti xaadirkan ay ku jiheysan yihiin. xiriiro kala duwan oo aynu la sameynay saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca deegaanka ee fariisimaha ku leh duleedka deegaanada Waqdariye Shidan iyo sidoo kale Yube gobolka Sanaag ayaa waxay kaalmooyin media u sheegeen inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dhinaca Somaliland ka socda iyagoona tilmaamay in ay diyaar u yihiin duulaan kasta oo lagu soo qado inay si dhaqsi leh markaasi ugu jawaabi doonaan. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka oo magaciisa iyo sidoo kale codkiisaba in aan adeegsana ka cudur daartay waxa uu inoo sheegay isla markaana uu yiri si dhow ayaan ula soconnaa ciidamada ka soo baxay magaalada Cerigabo kuna soo wajahan deegaanada Waqdariye Shidan iyo sidoo kale Yube. si gaar ah deegaanka Waqdariye ciidamada ku soo socda waanu la soconnaa ayuu yiri dhaqdhaqaaqooda waxaana diyaar u nahay in aynu ka hortagno isku day kasta oo la doonayo in markaasi duulaan loogu soo qaado dhulkeenana lagu qaato ayuu yiri. dhulkan inaga ayaa iska leh difaaciisana waa nagu waajib ayuu yiri. cashar adag ayaanu u dhigi doonaa sidii aan horeyba u sameyn jirnay maleeshiyaadka duulaanka ka soo ah dhinaca Somaliland ayuu yiri sargaalkaasi. maraan wax ka weydiinay in dhankooda ay markaasi qaadi doonaan weeraro ka hortaga waxa uu yiri inagu markasta waxaynu diyaar u nahay inaan difaacno deegaankeena haddii ay nagu qasabtana waxa uu yiri waxaan qaadi doonaa weeraro markaasi aysan Somaliland ciidamadeeda mahdin isla markaana u noqon doona cashar adag oo aysan ka soo waaqsan doonin ayuu yiri. dhinaca Somaliland ilaa hadda markaasi waxaa muuqata inaysan si buuxda markaasi u shaacinin dhaqdhaqaaqa laakiin dadka deegaanka ayaa tilmaamaya inay arkayeen ciidamo aad u fara badan oo ka baxaya magaalada Cerigabo isla markaana ku sii jeeda dhinaca deegaan xebeedka Waqdariye ee gobolka Sanaag. waxaana dadka deegaanka ee Waqdariye ku sugan dhankooda ay tilmaameen in ciidamo iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan loo dhaqaajiyay dhinaca jidaha hore ee gobolka Sanaag gaar ahaan duleedka deegaanka Waqdariye. waxaa la soo warinayaa in meel 30 kiiloomitir u jirta deegaanka Waqdariye ay ciidamada difaaca deegaanka ku sugan yihiin waqti xaadirkan halkaas oo ay ka dhigteen aagag difaac oo aad u adag ayna doonayaan inay ka difaacaan
deegaan xeebeedka waqdariye oo ah deegaan istiraatiiji ah isla markaana Somaliland ay si weyn u danaynaysa in mar uun gacanta ay ku dhigto deegaankaasi oo ah deegaan marka la fiiriyo si weyn muhiimad gaar ah ugu leh dhinaca maamulka Somaliland maadaama uu yahay deegaan xeebeed istiraatiiji ah. ciidamada Somaliland ayaa lagu arkayay dhanka kale ee ku sugan difaacyada hore ee waqdariye iyo shidan iyaga oo sameynaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan walow markaasi dhinaca ciidamada difaaca dhankooda ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan. muuqaallo markaasi lagu baahiyay baraha bulshada oo ay duubeen dadka deegaanka waxaa laga arkayay hoobiyaasha iyo sidoo kale madaafiicda oo ciidamada Somaliland u sii jiidanayaan dhinaca deegaanka waqdariye ee gobolka Sanaag. si la mid ah deegaanka waqdariye ayaa lagu arkayay duleedkiisa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan iyo abaabul ay sameynayaan ciidamada difaaca deegaanka oo u sii socda dhanka jidaha hore ee gobolka Sanaag gaar ahaan duleedka waqdariye. dhinaca marka la fiiriyo maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa uu si weyn markaasi u garab taagan yahay sida xogaha ay tilmaamayaan maamulka iyo sidoo kale ciidamada difaaca deegaanka ee waqdariye shidan iyo sidoo kale Yube. waxaana maamulka waqooyi bari la tilmaamaya inuu si hagar la'aan markaasi diyaar ugu yahay inuu ka qayb qaato dagaal kasta oo lagu soo qaado deegaanada waqdariye iyo shidan difaacooda. guud ahaan wixii ka soo kordhay xiisadda gobolka Sanaag iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya halkaasi wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka Laysar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo sida aad markaasi u aragto xiisadda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa culus ee ka soconaya deegaanada waqdariye shidan iyo sidoo kale Yube. yaa ku guuleysan doona xiisaddan ma Somaliland ayaa deegaanadan gacanta ku dhigi doonta mise ciidamada difaaca deegaanka ayaa ku guuleysan doona inay difaacdaan deegaanadooda oo maalmo ka hor ay markaasi dagaal adag kula galeen ciidamada maamulka Somaliland iyo maleeshiyaadkii ay taageerayeen. maxay tahay tallaabada la gudboon dadka deegaanka iyo sidoo kale guud ahaan beesha warsangeli ee gobolka Sanaag si ay markaasi dhulkooda u difaacdaan? aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag sida aad u aragto. wahagaag markana dhinacaas iyo Galmudug. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo muddooyinkii la soo dhaafay safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka halkaas oo soo dhaweyn markaasi loogu sameeyay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn markaasi hadalhayntiisa ku aadan maqnaashihiisii inaan markaasi war laga haynin ay warbaahinta si weyn u qabsatay. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaano, siyaasiyiin isugu jira mucaarad iyo kuwa markaasi muxaafid ah, iyadoona soo dhaweyntiisa mas'uuliyiinta dowladda ay qayb ka ahaayeen xildhibaano iyo wasiirro markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibo dhowla ah. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa markii uu ka soo degay Muqdisho isla markaana uu gaaray hoygiisa magaalada Muqdisho waxa uu durbadiiba bilaabay inuu kulamo iyo sidoo kale casuumaad u sameeyo xubnaha mucaaradka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana durbadiiba uu kulamo kala duwan u la yeeshay xildhibaano mucaarad ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeeyo xildhibaan Yaasiin Faray iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo badankood markaasi ay yihiin kuwa u sharaxan xilka madaxweynenimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka Galmudug iyo sidoo kale xildhibaano markaasi doonaya inay mar kale ku soo laabtaan kuraasta xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la soo warinayaa in kulamadaasi kadib uu aadi doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug halkaas oo mar kale uu kulamo kula yeelan doono mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. xoguhu waxay tilmaamayaan in madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay Muqdisho markaasi imaashihiisa ama soo maritaankiisa Muqdisho ay tahay inuu kulan la yeesho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gelinka dambe ka soo ambixi doona magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxaa la tilmaamayaa in ciidamo fara badan ay ugu diyaarsan yihiin magaalada Dhuusamareeb iyadoona madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye uu si weyn uga shakisan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa. marka la fiiriyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu ka walaacsan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay howlgal la mid ah kii Baydhabo ka fuliyaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug
laakiin Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor marka la fiiriyo waxa uu wax badan ka duwan yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed isaga oo haysta taageerada siyaasiyiin waaweyn oo saameyn ku leh deegaanada dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale xubno markaasi si weyn looga dhex yaqaan siyaasiyiinta Soomaalida waxaana kamid ah Cabdiraxmaan Odowa oo dhawaan ka baxay safka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo la tuhunsan yahay inuu si weyn markaasi u garab istaagi doono madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa saacadaha soo socday suuragal tahay inuu ambabaxa dhinaca magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug halkaas oo si weyn markaasi uga socoto qabanqaabada diyaar garowga soo dhaweynta Qoorqoor iyadoo dhinaca kale markaasi la arkayo ciidamo fara badan oo ku sii qulqulaya magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo la tilmaamay inay yihiin ciidamo daacad u ah madaxweynaha Galmudug iyagoo ka kala yimid deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin Cabudwa, Gurceel, Dhuusamareeb iyo deegaano kale oo dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada Cadaado iyo Gaalkacyo. Qoorqoor ayaa waxa uu gali doonaa maalmo siyaasadeed oo kan marka la fiiriyo wixii ka dhacay magaalada Baydhabo oo si weyn uga dharagsan yahay isla markaana ula socda isaga oo hadda xoogiisa isugu geyn doono sidii uga hortagi lahaa isku day kasta oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ay ku wajahaan Qoorqoor si ay markaasi meesha u dhaafiyaan. madaxweyne Qoorqoor ayaa dadku ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi markaasi waaya arag isla markaana sidoo kale siyaasi qoyar socod ah waxayna ku tilmaameen inuu yahay siyaasi ka gudbi kara marxaladaha adag oo aan markaasi ku dhax ku fidoonin sidii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. Dhuusamareeb ayaa la tilmaamayaa inay la circiirayso ciidamo aad u fara badan kuwaas oo iyagu markaasi diyaar u ah inay kursiga ku ilaaliyaan madaxweyne Qoorqoor haddii dowladda federaalka Soomaaliya isku daydo in howlgal military oo la mid ah kii magaalada Baydhabo ka dhacay ay ka fuliso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. mas'uuliyiin ka tirsan ayaa maalmo ka hor si dadban uga hadlay dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale walaaca ku aadan in howlgal la mid ah midkii Koonfur Galbeed Galmudug laga fulin karo waxaana ay gaashaanka u daruureen suurtagalnimada howlgal noocaasi ah waxayna mas'uuliyiinta qaarkood tilmaameen inay mar walba Galmudug u taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo in dalka uu gaaro hanaan dowladeed oo isku filan isla markaana aysan aqbali doonin tallaabo kasta oo qaldan oo dowladda federaalka Soomaaliya marnaba markaasi aysan ka aqbali doonin. guud ahaan xiisada Galmudug iyo wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee markasta helo xogaha iyo warbixinada aynu halkan ku baahino ee ku saabsan Soomaalida iyo caalamka. muuqaalkan like share naguna soo biir calaamada subscribe-ka noo taaba haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogina nagu soo biir oo markasta hel warar iyo warbixino markaasi aynu halkan ku baahino. wagaag markana dhinacaas iyo Baydhabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu si weyn markaasi uga hadlay xiisada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka socda isagoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay dad badan oo shacab ah isla markaana khudbad u jeedinayay uu ka hadlay xiisadaha kala duwan iyo sidoo kale khilaafkii magaalada Baydhabo ee lagu dhaafiyay maamulkii hore uu hogaaminayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer markaasi ka jeediyay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu yiri waan ka tagi doonaa magaalada Baydhabo amnigana waxa sii sugi doona oo ka shaqeyn doona dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda. waxaan ugu baaqaynaa shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada si loo hagaajiyo amniga markaasi uu noqdo mid la isku haleyn karo. maalmo yarana ayaan idinla joognaa shakhsigan markaasi sida ku meel gaarka u sii maamuli doonana waa hogaamiyaha ay soo magacaawday xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu yiri muddo ku siman bil ilaa iyo 2 bilood ayuu joogi doonaa kadibna xafiiskiisa shaqo ayuu dib ugu laaban doonaa ayuu yiri oo baahi weyn u qaba. intaas ka horeysana waa uu sii shaqeynayaa waxaana la qaban doonaa doorasho markaasi cadaalad ah oo loo dhan yahay isla markaana aad ku dooran doontaan shakhsiga idin hogaamin lahaa ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waa kan madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya. war annagu dowladda federaalka haddaan nahay waa idinka dhaxbaxaynaa waa idinka tegaynaa ninkaas hogaamiyaha oo muddo kooban bil miya 2 bil miya wax la mid ah joogaya ilaa laga dooranayo hogaankii Koonfur Galbeed waaye
رئيس وزراء كحيان كجمهورية دواء حفيز كيسيا أوبان شغليسيا أوبان ما شانوا جوجا مدة كلا دي بوشيسين ربنا إلا هالشيان ربنا ضد كفرقه هذا اللي سكوا محر كلا قلوبته هذا اللي سكوا حرا ضد كدي قلبي جود وحكوا كل الجرو وانا ضد كأوغارصة محيدهان وركل يا أوغارصة وحال هذا حد ضد كأوغارصة يا ساكي إن أوغار دونتان ربه قلبي أي وحسوها يان أوغار حتى مسوهر يان مالين تاس marka anaga oo dawlad inaan dhisna rabno hadii aan qalbiga wax soo hayno dawlad ma dhisi kareen qalbigeena horta inaan nadiifino oo iscafino maanti xanuunki wixii dhacay lama iloobayo laakiin waa la cafina ilaahay hortiisa loo cafina wanaaga iyo Soomaalinimada loo cafina mustaqbalku inuu qurxoonaada loo cafina shalay wixii dhacay ninkii naga dhintay kii la xiray kii la dharbaaxay kii la caayay ma soo cili karno isdhan شلو وحيد عواد عين واتكتم مسوع علي كرم لكن هدان شلي هي بشيء دي أنكو جنو بريء هدان شلي نقدر نقوني بريء دم هدان شلي نقدر نقوني ماني والب مركز ماني والب نقوم ما إن شاء الله يعيل أن لم يرجوجينا وحي شلي اسكت بكنو أكتوبر شنتي دي أفرتي دي مرة ما كان أن أنت إمدي magaalada meel yar oo intaan fariisano odayaasha dhaqanka aan kula shiro oo kula aan weyne qorraxdaasaan istaagnay darbi aan mara yar oo walanba saan inta loogu xiraan hor istaagnay dadkana qorraxday taagnaayeen waa wada hadalna waa ka soo tagnay 2016 mugaas 2012 waa 2016 aan imiday Sharif Xasan Sheekh Aadan oo madaxweynaha xafiis weyn leh حفيز كان أضياش سوون مدة الله ونحرسته ملاك مربوان أنا ويدان ملاك مربوان حنقول سنة أضياش دم وافديان السجا أضياش الله ونحرس حسن شرّي يعني أخيارتي هرب وافديان وعندنا ملاك مربوان ما أنت أقول رسم ماشي أسكو أرجع نقول ماشي هسه أنت جون يريد الرجنو هاي مجالدان مر والبوادها مجالدان ديك اللي مرف وكنا ولاين كل سنة كورا دجان كان أما مجالها آت أما باديها آت أي دجناين مجالها أيضا أنا واد دجناين بقول سنة هذين كل سنة دمين حفيز كان حفيز وين وميس وين له أفرق كل شيء كل شيء تايو قبوبة نحفرنا هل حفيز السودان وكلا محيوس ميسوي حارة واهستان ضل واهستان فرسم يقانو واحد السواق قبان هل حفيز السودان وكلا أضياشينا السكوت ما هذه محله سميوه ولا سفير ولا سميوه وأنا وش وأنا محله سميوه متقنها أو كان له سمي دولة واي دولة نمذا واي حفيز كان دولة نمذا اللي عليه هذه دولة نمذ جري لهين قرح لنا سكور صلهين يجيده هو السودان تجنا له مركز سيدي ذا بقى وحلا ذكر وحتى الدولة نمذا إنا إيران لسان ما ملك إيه دولة نمذا إنا أوهي لسان متك مسؤول كأجوجا هذا قضى وقتي ولا وقتي اسمه كل رماده اسكدر عد كاغا كدر ولا قاعد يرلا ولا قاعد بدي ولا قاعد وحسم الله مركا إن شاء الله قبلها إني شرفت بدنا فرصة ولا أبوري كرا لكن وسال شيء جاي فرسك بيها واجي كرتا لكن ما عبسي كرت أنا فرصة وأبوري كرنا لكن فرصة دي إني كفى إديستان هذيك هو واحد ذكر أنا ما ذيك كيف إذا كذا ذلك دولة فدرالك أمني مجال عن السوق إلى ضد سكوك كلسون ولشي أمني سكوك كلسون إس أقبلي إس ربو أو إس السوق هي أمني أو أن ريدبل أهين إلى اللي هلا يو أمني قعنتن كوهينينا وأنا دودا ما أنت اللي هلا يهدي اللي يرى أرنتاس كو مامول ضد كدورتين degaan kan inuu yeesho waa dadajinayna ayadana intii suurtagal ah waa lagu dhaqsanaa waa la sameynaa maalin ma dhow on dheereen ilaahay idankiis madaxweynihii dowlad goboleedka la doortay baarlamaankii la doortay maxaa cala masaarkooda iyo xafladeyntooda yaan isugu imaan doonaa ilaahay idankiis hadii ilaahay naftiisa niyad samaan iyo qalbi wanaagsan gala odayaasha dhaqanka maantaan kulannay waxaan kala qaadanay dib u heshiisiin inay ka shaqeeyaan la shaqeeya idinkama maarmaan aad iyo aad ayay idinku baahan yihiin dardaarankayga ugu dambeeyo gabdhihiina meeshaan fadhiyo gurigaa ka wada timaadeen gurigaasi gabdhihii wiilalba waa ku wada nool yihiin hooyo midaad u tahood dhashay
habaryar midaad u taho walaashaa dhashay eedda midaad u taho walaalkaa dhalay midaad maxaan ku irahday xidid tihiin oo ama gabadhaada qabo ama muxuu wiilkaaga oo gabadhiisa saasoo miiranaa la yahay waxa leeyana wiil waaye gabar ma ah waxa madfaca qoriga sito oo waxa le inta badan wiil waaye gabadhu afay wax ku hadlaysaa marka qaarkoodna afka qoriga waa ka daran yahay la dhahaa afka gabadha hadday inta isciilkaan biyeysa ay maxaan waxaa la yidhaha soomaalida hore kuma maahi jirtay waran la kilkilay waranka marka lasoo tuuro waran la kilkilay iyo gamba la kilkilay yaa daranaa la yidhaha waxaa la isku raacay gambada inay daran tahay gamba la kilkilay yaa daranaa la yidhi marka waxaan rabnaa gabayaha nabadda ka shaqeeya wiilasha xun waa kuu soo hoydaahay yacdhe qabo celi walaalow joogdhe muxuu ahaye ninkaygii joogdhe in adeerow joogdhe celi garabkiina allah galo amniga ka shaqeeya dib u heshiisiinta ka shaqeeya dowlad dhisidda ka shaqeeya dhammaan dowlaad leedihiin mas-uuliyadda kaloo weyn oo mas-uuliyaddii qoyska ah oo idin saaran laakiin saacadahaada saacado ka mid ah si waxa danta caamka ka dhexeeya